kala weydiiyay ninkan maxaa lagu haystaa markaas la yiri 200 shilin oo Kenya money bas laga rabaa waxay dhaanaa 200 haystee haddaan 100 siiyo 100 kale ana isku ilaalinaya ee maladeynaya haahu 100 kii laga qaaday janankii waladi waa ninkii jananka ahay gobernatooraha noo ahay nin askari oo wuxuu ku beecinaya 2 shilin 200 oo Kenya money halkaas waa ka dhaqaaqo waxaan tagay Dubai ninkii airportka iga qaaday oo igeey guriga la seexdo nin uu la hadlay wuxuu yiri boos banaan ma haystiin markaas uu yiri waxa banaan meel kora anigu marka meel kora ma fahmo guriga la igeey 4 sareerood oo ku xalana oo kaleeta oo 4 nin oo kor jiifto 4 nin hoos jiifto la igeey waxa la yiri ونكان هو علوسي هو كرم فولي كره هوسا لجيليا بقول كنت واينو ديبا ما شدتك كلا بقول كديبا واي هلا يريد دنتابا كنت بقول كيغان ديبتي كنت كيغي صبحي waagu haduu bariyo aniga bas soo toosay gabdhi gurigu laba qol oo ka kooban yahay iyo jikada iyo hal qol waxa degan gabdho qolka kaleetana 8 qofood oo rag ah hadda subaxii waagu markuu bariyaan aniga iyo gabdhihii soo toosay war wiilasha kale maxaa ku dhacay wiilasha kale 5 saac 6 saac ay soo kacaano habeenkii jawaanay xirxiraan maalintiina waa jiifa habeenkii markii la gaaray oo subaxii waagu haduu bariyaan soo habeenkii la gaaray dadkii wada seexday gabar aan ugu soo hartay oo meesha fadhis markaas ay raadeen ma saaxatay adu markaas ay tiri maya anigu jiif ma lihiyo gabar bari shaqo tagaysa aan booskeeda saaxar raba subax ma la jiif tabaas halkaas waa ka tagay Mareykanka mar alla markaan Mareykan tagay aalay dadka cusubo warshad hilibka qashaq ay horta ka soo shaqeeyaan kadib ay magaalada ku soo noqdaan qodobbo maalmood oo rotation la furay markaan rotation dhamaystay wax la geeyay halkii warshadu ku til irideeda qofkii iga hor yimid oo igu horeeyon arkay nin Soomaaliya abukaata ahay oo maxkamadda badbaadada lawyer ka ahaa jiray oo 2 midiyood iyo soofo wata oo meesha ay ugu jiraan ayaa iga hor yimid هذا رادو ما قبل يسال ها قبل يسمع حتى هلب كان قال يو aniga markaan gudaha galay la yiri adiga iyo laba Suudaan oo xoog aad leedahay midiyaa la idiga dhibin ma meel ka sareysa la idiga goyn ajalada hilibka sida la yiri mara ay istaag noqotaa halka kartoon waxa ku jira 7 kiilo 400 oo kartoon 1 minute dajinaysan ajaladu markay toostana waa ku celinaysaa sidaan maalintoona isteel u lahaa aniga maalintii qorraxu markuu dhacay saasa u socdo sida uu istaagi karay arinta ka soo bax bishu markay dhamaataa waxa la yiri $300 aad shaqaysatay graduation dadku ugu horeeyo oo lacagta helaabata $500 ilmeyga cunay $200 ana transport ka dhigtay 9 qofood oo mid maalin shahaadi siiyay iyo mid maalin meel iga bixiyay iyo mid maalin waxii taagay iyo mid qaraabana ay soo wacay waxay ka wada sinaayeen mar kasta ay hadalka dhameystaan aniga maanta kaliya ku soo waco wiligeey dad soo waco war boqol ay hartay boqolkii oo deeqa waa ka soo laabtay xamaraan imaday waxaan joogaa 7 sano joogaa ma bixin wiilasha dhalinyarada mid walba waxa uu yiraahdaa adeer goorma noqonayso Mareykanka ku noqonay anigana waxa igu taal inaan baadiyasi aado xagga u sii socdo waxa ku soo qatimaya dadku markuu ugu horeyso waa inay horta wadaniyad yeeshaan aaminaan dalkooda ama foorarka ka shaqaystaan ama qaab kale u shaqaystaan
horta waa in aad leedahay waxaad cunaysood raadinaysa wax ka weyn waa birijiibiyada adiga laftaada ka weyn waxa kaloo ka weyn dhulkaaga wallaahi ina nin dhulkiisa ka tago ula faa'iido keenay hal kelmadaan ku soo qatimaya nin adeerkeeya waagii guulwadahu soo baxay guulwada loo qoray waxa la yidhi qof kasta oo qaldamo ama xoolo ama dad waa ganaaxiisa maalintii dambe uu baxay beertiisii uu tagay beertii bannaankeeda soo joogo wuxuu arkay rati ku jira beerta waa fiiriyey ratiga markuu beerta ugu tagay dhacayuu soo geli waxuu keenay meeshii lagu ganaaxay ratiga asaa iska leh beertana asaa iska leh laakiin waxaa la yidhi wixii qaldamoona ganaax maalmahan waxaan maqlayay nin Soomaali Kenyaana oo anigu Soomaaliyaan ahay badda Soomaaliyana Kenya leh war halmeena ma iska aamuso yiraahdo anigu Kenyaanaan ahay waa adeerkay ratigiisii ganaaxo kale هذا هو ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ها هذا هو تكلم هذا هو تأمل لنا